wax cadaalad darro igu sameyn habaarkayga ma qabanayo mana kuli cid iiga dhow maantana cunugayga ma jirto soo cunugayga badar iyo baad ma siisanina caloosh kuma uma ooyin ilma adeeryaalo daaroodnimadiina iyo mareexaanimadiina futada inta iska gelisiin saqiirkayga wiilkayga yara maskiinka ammaan heedin ka helo waxa ku soo horanin ninka mareexaan futada iska geliya gashta hadduu aad 100 nin idin noqonaya ka dhigta aniga nin naag furo wax weyn ma laakiin ilmahayga xaqooda ma leega maro baa midii sheegay ma fahanteen soo marka ninka mareexaan naagtan waxa igu cabaadaysiin oo kulli oo inasiin boqorada ingiriiska waay waxa la furo camal boqorada hawiya la furo boqorada budlood waa waxa la furo ma fahan tan kale mid kale wiliga aan leema furin ani wiligeenin waa ku furo milyuunay waa iga ka dhamaata nolosheedii ma dhih miidin maxaa ka bedeli kartiin aniga go-aankayga nolosheeda ku burburiya haddaa artiin milyuun oo nolosheeda burburtay waa go-aankeeda haddana iskama burburina there is something waxbaa jiro wax lay ku burburismaa iskama burburinayso waa garteen sama soo marka barnaamijka idin guda galaynaa kaale soo bax kaale marka waxaa waaye maanta waxaana soo booqday wiilkayga aabbihiis 4 maalin isma arkin maalinta isfurna isku keen dambeysay maanta imaaday hadda waxa isku furna hadda ka hadleynaa marka uu joogay hadda ma fahanti ninka mareexaan oo ifuray uu taagan yahay hadda live ku soo galaya hadda idin sheegaya waxaan ku kala tagnay meeshaan uu ka sheegay martii uu ugu yahay caaw soo dhawaada ajnabiyan kalna ii soo dhawaada yaa halkaba been sheegay aniga adigu laakiin waxaad sheegi kartaa يا إيدعي وحي وحو نقض السومة سومك يا قبي سوق مركة بلسان ده سومك وكبي لا إيه وران لكن waxaan ku dhahayo wixii markaas saa'idan oo iska warqabeena hal mid ay jirto aniga habraha xun oo madhalayska oo qabiiladooda liitaan wallahi bilaa tala waxa iga bedelaysin malahan adduunku waxa igu yaabka badneed maanta naag mareexaan sheeganayso horta mareexaano ay head more inta idin jeclaa inta idin necbanay ka badan idin siinacay wax hal yar ayaanta naceebka aan idinka arkay oo idin qaaday boqol jibarkeeda idin necbana sababta idinku sheegay idinku necbana aniga naag mareexaan sheeganaysa waxay sameysay waxay soo qortay comment ee leedahay alxamdulillah haduu ku furay ninki mareexaan fiiriya alxamdulillah tira haduu ku furay it's not big deal aniga nin furo waxbiga matara laakiin waxay si raacisay cunuga xunkaane degdeg saqiir allah uga dhig ha saqiiro hadda mareexaan bay sheeganaysa Soomaali inay gun yihiin baadii sheegaya gun inay yihiin reer kasbaa idin sheegaya cunugeygii habaar ula soo fadhiisay cunuga si degdeg ah ku saqiiro naawiilkayga quruxda badan ee maskiinka ee saqiirka ee 20 maalin ka yar dhalan ee adduunkaba bil aan joogin ayaad habaaraysaa adoo waliba mareexaan sheegana nacalna mareexaan iyo firkiisa ku taal iyo farciis markaasay waxay sheeganaysaa cunugayga qabiilkiis markaasay saqiirkana habaaraysaa aad baan ugu xumaaday necab far badan waa idin si qaad oo aad iyo aad ayaan idin si necbanaa ma fahan wixii ay soo qor aniga waxba ma arki wixii oo anigi soo caay wana waxba ma arkay wixii cunuga caynayaan la yaabana on emotional damage ka noqday on aad idin kugu necbaystay aniga caayda ay aysan mid ku nicin ogaada mareexano nacaabka aniga igu jiro hadda aan dareemay in idin qabo horta ilaahay iga saaro laakiin haduu iga saar mooy wax ku sabsatan idin sheega caay aniga caaysan ma ani ilaa amaano ma kala jecel noloshayda hada caaw saaka qol inta iga furtay ilaa caaw cays wallahi oo billah wax yar xataa ma isbedelay laakiin aniga cunugayga saqiirka haduu daarood iyo haduu jareer iyo haduu yahuud israa'iil iyo haduu duul kale cunugayga aniga waa cunugayga markaa habaartid ama caysid been kuma sheegay naftaan ku aqdiga hadda ila dhalatay xataa walaashi ila dhalatay aniga aabe hooyaday dhaleen cunugayga wax ka sheegi karto cunugayga ilxun qofka ku fiir ishaan kasiiba waa ka bixina marka naceebka aan idin qaaday waxa koo ka ah aniga cunugayga 9 bilisugoodan soo sitay calooshoodu ka soo baxay waa boqorkaas siriiska operation baan ku dhalay
waxaan ku dhahay waa cunugayga saqiir weeyaan maskiin weeyaan sabi weeyaan waa lagu caayma yaqaan waa lagu habaar ma yaqaano waa tolkaaga waa ku caayma yaqaano waa eedda ma yaqaano waa habareer ma yaqaano waa abti ma yaqaano caay marka caaydiyan balaya banaanimo waa weyn cunug la dagaalamaaye naag habaaramaysa imaad mareexaanka ila qumayaala ka buux waaba dadka ilaastaba qumayo dhine balaaya kugu dhacda marka aniga cunugayga wax kasta saayee مليون ربل ميو ناقتص قبيلة ستدا أو أيدا أو ساس وين هذا ما هي ها عنو جاي عندكم مدور سنة ويل كي عنيجا دارات إلها كريم مو مريحان إلها كريم مو بقلال هوية عنو جاي فعلا لبن مليون أو هوية أبي أنتوا ولا عنو جاي يسكم مدور سنة أبي ما دي شيء مسرون أنت إلى دلتي عنيجا الناس كل سنة عنو جاي يسكم مدور سنة أبي ما دي شيء مسرون أنت دي شيء ويل كي جيريس كسقير كأه قف بني آذن عنيجا أنكو دور سنة مجرد ilmahayga kulli waa 5 asfarood fartas mid kamid ah hadii la gooyana ugu xanuun waa way xanuunaysaa farahayga far kamid ah hadii laga jaro aad baan xanuun u dareemayaa soo aniga ilmahayga marka kama ciyaaro wiilasheeda aniga hadda ii joogo ilmahayga Ethiopia anoo wax kasta adduunka sameeysan kara ilmahayga dartooda wax walba oo sameeysan kara aan xayir dabaqii anoo dhisan kara aniga ilmahayga dartooda u dhisay أنا فعيق أدونك أنتو سو آدو المهد والدك وتوصل تكتي ولا لهد أنا المهيج كسر تجواي ينقو دتك إيه هنا ديار هين ولا عجيج الديار اللي هم كده في لها اللي يقول رف أو ولا شيء ماذا thank you راضي أنا درت يا ماذا ولا حرح thank you my lovely sister thank you my sister مركا عاد أمهات سنتها بقردي إلى دلت ويان لوحي صدرت ما شاء الله thank you my queen marka aniga ilmahayga ano Afrika joogo ayaa u soo rafaaday ano Afrika joogo aan mustaqbalkayga diiday inaan mustaqbal ma dibad la aado ilmahaaga ka dhoof orod wado kulli qofkas dadkaas aniga heladeeda wanaagay ka talinayeen maadaama gabar karti badan shaqaysato qurux badan aan ahay waxay ka wadeen waxa qabsato qof single hooyo waaye gabar yar waaye wali waa single caruur yar haysta waxa qabsato wanaagay ka tilna lacagteedu waxay qadin diyaar ahayn waa la iga bixinay waxa la igu dhahay milyan mi aha anaga ahayn waxaan ku dhahay dibadda aada wiilashaydan ka taga ani marka ilmahayga ilmo qabow oo qurbo ku koro ku dhashtay waay ilmaha Soomaalida oo indhaha adeeg laho waxaan ku dhahayo ma ahan oo Faisal thank you Faisal Barax thank you all dadkii giftiga soo diray aad baa mahadsantiin walaalayaal ma sha Allah thank you another marka qofkaas waaye ilmahaysato haddana qof firfircoon oo shaqeynayso oo shaqeysanayso wax soo saarayso soo jiidasho la amin thank you so much above thank you for your gift ahay marka waxay isku dayaan inay aniga ilmahayga lahaay aniga aan baxo dhoofo ilmahayga wato mustaqbalkayga baa midii sheega wallahi oo bilaa oo tallah waxa eri lacagtaana midin ka rabi ilmahaygana ma ka tagay sabab baa lagu dhahay marka sabab milyan reason كذا دي شيء مليون ما حدا عم مستقبل كاج آذن أسمي سنين أذن أدوفين المهاجة آذن أوذنين على يورا أنا ما يقل أنا حريم تقارن أو قط أو يجو جبتي وإن ممكن ركعتي جرين حتى إنه يجور سدان وحنكوير مركز ريس ناس مي وحنكود هاي أنا جموي وإذن آمي السنة هاي oh thank you رحمة روسا باي thank you for your gift thank you كل جين thank you so much هذا ما سنتين تجفتي صد دراسة فيصل فارح thank you another معانا هذا ما سنتين كل جين thank you so much dadkii soo diray gifsidaad baa mahadsantiin soo dhawaada aad baa mahadsantiin marka waxa la igu yiri milyan maxaa dhacay oo sheegada mustaqbalkaaga u dhisanaynin waxaan ku iri aniga wiilal waa ilmahayga gabadhayda mar dambaan dhalay ilaahay ii deestin ku sheeg wiilashayda marka waa ilmo qurbo ku dhashtay ku koray ilmahayga ma aha sida ilmaha Soomaalida oo indhaha adag leh afka dheer leh fataqda badan leh meel kasta ku dhacdhacay ma ahan waa ilmo Ethiopian qofkii qanayqaan Ethiopianka dadkooda qofka la dhaqmay qaan dadka qabow oo jurub dhahayaan oo aad u qabow weeyaan bas markii ilmahayga meesha maadaama ay ku dhashteen ku koran iskuul ay ka dhigteen waa iska xabishiyoobeen waxay noqdeen ilmo qabow ilmo oo Soomaalida camal qarracma waxaan ku yiri marka aniga wiilashayda waa wiilal yar وويل المساكين ما إن دعتكو حتى even هدي وحكاجة بهذا عنتو مركز وباهين هذا الميجا أنت يجي كذا جلان وحرات سدان هو كان ربنا كان مركز حتى خوفك ما ده هايان وحاسة وباهنا هاي حبرير كان يعاوي حبر كان ربنا عنتو ما ده هايان سو مركز عنو جيجا عندكن كيسة خان الميجا
inay dadka islaamad ka xishoonayaan ee wax weydiisan karin ilaah idinku dhaariyaysa uga aaminaa dad ugu soo tagaa haddaa cunugayga laakiin gee ku ogahay inuu uu micnaha qofka wax weydiisan karo fagfag badan yahay habaryar saana u baahanahay kan uu dhihi karo haa cunugayga qofku waa aaminaa laakiin qof ajnabi guri ma geysan kari daruuf kasta oo hayso qof ajnabi guri ma geysan kari ma aamini kari laakiin qofku markuu Soomaali yahay Soomaali ma yahay haa UK yaa weligay ma dhihin waa soo wadaa caawinay ma fahant soo marka waxaa waaye ano Afrika joogaan dadka aruurnay marka hadda Yurub aniga shaqo hadda sanad la shaqeeyay iskuul yar liidra lacagayga noloshayda meel ay saaran yihiin ninkaas qabow ii shaqeynaa biilkayga wixii banaanka ahayn ana noloshayda banaanka ahayd marka waxaan ku keenay bini aadanimada naagahan ilmahayga habaaraayo hoostiina Allah idinka siiyay miidin dhihi kariye oo hoostiina Allah idinka siiyay hadaa idin dhaho saqiirada aad dhasheen wax inuu gaaran ka baqaahay marib inaan weligay hal mar qof habaara hadda koor wuuna ka soo baxo isla daqiiqada habaar wallah ana markaas darteed dadkiina habaar ma jecel wallah waa idinka ilaaliyaa weligay hal mar qof habaar halkii qof mar aan habaarane isla markii aan dhibkii uu ku dhacay waxaan ku habaara ku dhacay waxaan ku habaara weliga qof waxa ku habaartay ku dhacay waxaan ku habaara Itoobiya jooga halkaas mar ilaa hadda nolosheeda qof ma habaaro xataa hadduu i habaaro qof ma habaaro waa ka daaya waxaan islaam milyuune ka daa ha habaarine iska daa marka aad baan uga xumahay emotional ka ahay naagaha dhilooyinka ee mareexaanka ee eeyaha ee laangaabta ee tubaakada u baxdo ee qasiisyaasha ee garacyada ee cunugayga soo habaaray cunugayga ka dhamaada xaq kuma leediin badal ma siisanina baad ma siisanina aniga oo dhalo la igu soo jaray haddoosan dulmi ugu sameyn xaq ee cunugayga kuma li habaar aniga oo jirkaygu ka soo go'ay oo la soo qalqalay haddoosan cunugayga wax cadaalad darro igu sameyn habaarkayga ma qabanayo mana kuli cid iiga dhow maantana cunugayga ma jirto soo cunugayga badari baad ma siisanina caloosh kuma uma ooyin ilma adeeryaalo daaroodnimadiina iyo mareexaanimadiina futada inta iska gelisiin saqiirkayga wiilkayga yara maskiinka amaan heedin ka helo waxaa ku soo horanin ninka mareexaan futada iska geliya gashta hadduu aad 100 nin idiin noqonaya ka dhigta aniga nin naag furo wax weyn ma laakiin ilmahayga xaqooda ma leega maro baamidii sheegay ma fahanteen soo marka ninka mareexaan naagtan waxa igu cabaadaysiin oo kulli oo inasiin boqorada Ingiriiska waa waxa la furay amal boqorada hawiya la furay boqorada Budlood waa waxa la furay ma fahan tan kale mid kale wiliga aan leema furin ani wiliga nin waa ku fur milyuunay waa iga ka dhamaata nolosheedii ma dhih miidin maxaa ka bedeli kartiin aniga go'aankayga nolosheeda ku burburiya hadaa artin milyuun oo nolosheeda burburtay waa go'aankeeda haddana iskama burburna there is something wax baa jiro wax lay ku burburisma iskama burburinayso waa garteen sama soo marka barnaamijka idin guda galeynaa kaale soo bax kaale marka waxaa waaye maanta waxaan soo booqday wiilkayga aabis 4 maalin isma arkin maalinta isfurna isku keen dambeysay maanta imaaday hadda waxa isku furna hadda ka hadleynaa marka uu joogay hadda ma fahanti ninka mareexaan oo ifuray uu taagan yahay hadda live ku soo galaya hadda idin sheegaya waxaan ku kala tagnay meeshaan uu ka sheegay martii uu ugu yahay caaw soo dhawaada ajnabiyan kalna ii soo dhawaada yaa halkaba been sheegay aniga adigu laakiin waxaad ta sheegi kartaa يا إدعي وحي وحو نقض السومة سومك يا قبي سوق مركة بلسان ده سومك وكبي لا إيه وران ده مرك هذا أوكي هذا وانو جدين سامع هذا جديد استوس هذا صونو مجدين منو جدين ها سو قرص في عن دانو جدين شاشة حوق وقراعة بليس وما هتسنتين حوق وقراعة السلام عليكم دمانتوين سلام يا أصحاب فضن ساولنتين soo dhawow horta meeshaan cabaaran ku sheekeynayay daqiiqadan ka maqnaay aan macnaha ka hadlayay dadkana daawanayo waa dad 4,000 oo qof ku dhow waa dad Soomaaliyeed waa dadkii waxaan ku dhahay social media ku jiray
marka kulli waxay leeyihiin maxaa la yiraahdayo arrimahan oo social media ka socdo wixii ka jira ayay rabaan inay ogaadaan waxay taagan yihiin milyuun rooble iyo odageedii maxay isku fureen dadka qaar waxay leeyihiin waxay isku fureen dadka qaar waxay leeyihiin life la isku furay ayadoo life ku jirta milyuun la furay leeyihiin dadka qaar wuxuu ku furay leeyihiin dadka qaar qabiilkiisa maadaama ay caysay saas uu ku furay leeyihiin dadka qaar waxay leeyihiin ayadaa dalbata furitaanka marka aniga horta kolay shalay ilaa maanta waa ka hadlaayay qoolal badan waa lasoo furtay dad badan ayaa waxay ku faraxsan yihiin furitaankaas meesha ka dhacay dad badanna way ka xun yihiin oo way ka walwarsan yihiin soo marka bal wax inaan oga taataabano waaye aniga hadda cabaar baan dadka usoo sheekeynayay laakiin waxaan ku dhahay hadda adiga maadaama aa imaaday waa in dadkan assalaamu calaykum horta dhammaantiin waan salaamaya sababintiin horta ummaddu inay war jeceshahay ilaa shalay baan ogaaday intii hore dhan maba ogeyn haya horta waxa weeye gabadhu waa lay furay iyo waxay rabtay dhihi kartaa laakiin ninka ragga hadduu yidhaahdo naagtu waa furo waa ka furantaa diiniyan waa ka furantaa aniga xaaskaygana ilaahay baana kala qaadi kara hal hameynna kama dhixin hal dalqana kuma furin weligay ma fahanteen laakiin waxaa ii soo baxday oon arkay ummadoo dhan ma jaa-ifeynayo hawiye boqortooyo inuu yahay baa ii soo baxday wallaahi bilaahi maxaa ku leedahay maxaa ku aragtay boqortooyo inuu yahay waxaa igu soo baxday gabadhaydu shalay ayadoo halkaa ka dhehaysa waa lay furay halkaasaan jiifay shaashada xoogna uu garaaca bilis halkaasaan jiifay oo joogay waa dhagaysanayay runtii maadaama social mediaha ay ku jirto gabadhaydu anigu reer social media miihi lifekaas meel laga soo qabto inta badan wallahi baana garanay waa garta maadaama ay iyadu hadlayso waxay rabtaa samayso aniga xataa dad baa soo wacay baruro kama qaban teleefanada ugama jawaabin sababtoo ah baleenka ayada waxay aragtay anoo halkaa la fadhiya qol dhan oo laleeyahay ninkii naagta waa isfure bal maqaaligii isku kaaya daray bay ahaayeen makiina kala furayay bay ahaayeen annagii oo guriganaga joogno isla qadaynay oo joogna baa social mediahii furitaan baaba nooga horreeyo maadaama furitaan nooga horreeyo dee ayada social media way iga dheeraysa anisu reer social media mihi ayaduna baaskii hore usii qabatay baaskii hore markay usii qabatay cidda aniga aan ka dhashay ee mareexaan baa dad gu liidata hadda waxaad leedihiin ninka maxaa waalay ninku ma fardan yahay muhtaarow meel kasta tol kasta cid walba waad soo dirteen haddaan idinka yeelayo cid walba waad soo dirteen nin reerkiisii loo soo dirhayo ma ari baa ninku ari miyaa waata laga yaabeen ma ari baa ninku aniga maskaxdaydaan ku socdaa naaga waa soo guursaday wiilkayga ugu yaro Copenhagen hadda jooga 14 sano jiraa carruurtayda waa kuriyaa anigu gabadhaan 20 beri ma gaarin markaad leedahay waa la furay caaw haddii xataa xag ilaahay ka soo dhimaato ay furtiraado ma furayo waxaan u furaynin beebigeedu 20 beri xataa ma gaarin waa xaq bay igu leedahay waa inaan cunugaas yarkaa la koriyo dadku way isfuri karaan wayna kala dhamaan karaan laakiin dad aan isqabsan oon mediaha isla imaanin mise alcohol aan cabnaa anagu dadka mediaha iska furo isku qabsado waa dad alcohol life ayadoo ku jirtaan iyo xaaskayga familkayga markay life ka baxda kadib inaan la hadlo xaaskayga waxaan ugu talagalay qorshahan kusoo talagalay aniga qorshaha aniga aan kusoo talagalay hadday furka igu turto xataa inaan waxba u arkay sababto ah dee kun qof baa soo caydayba oo familkaygii marka aniga waxa kastoo itiraahdo inaan waxba u arkin qaar baa waxay isoo qorayaan waa lagu bahdilay qaar baa waxay leeyihiin raggii kaa horreeyey labadii noo kaa horreysay baa kaa qayma badan bay tiri naagtaane maxaad ka ag fadhidaa labadii noo iga horreysay ilmahooda waa joogaan aniga maadaan ku dhahay raggaa kaa qiimo badan mase waxaan ku yidhi nolol noocaasa waa soo maray niman noocaasa ay soo guursaday weligeyna qabiil ilmahayga caana ama niman tumaashaashi aniga caana reerkaan oo kale weligey maarag waxaan midgaha ma aniga waxay sheegayaan macnaha yaan ka hadlaya macaan haye marka aniga hadday macnaha ama dad iga qiimo badan yihiin ama niman hore iga qiimo badan yihiin ilmaha meeshan jooga ilmahayga la dhashay labadii nin hore way iga qiimo badan yihiin sababta waxay iga qiimo badan yihiin ilmahan eedooyinkood
qaar Copenhagen bay la degan yihiin Qaarna- qaarna halkan ay degan yihiin mid aan gurigeeda tegin ma jirto waa the best dad wanaagsan weeye laakiin aniga dadka aan ka dhashay waa midgo dhalay weeye maantadan qolol waxaa soo furtay 5 qol oo gardhac leedahan arkay ninkii telefonkan soo qabsaday kaad ninkii la dhahayay aan saynay baryahanba oo wagardhac baan ahay dhahayay laakiin wagardhac midgaha wagardhac ahaa shaafici horta barnaamijka inta aan raadinayay maantan ka hel waa kaasa wiilkaygu soo qaad haddaan lawyer u qabsanayaa sharci ma laha jarmalku degan yahay nin cadaan ah buu la degan yahay naqtiisaan oo dambaysteena ka hadlayna marka waa usoo noqonayaa taas kale marka horta anagu ismaana furin dad isjecel oo wada nool boqol qol ay soo furteen boqol qol bay soo furteen waxay leeyihiin ninkii naagti waa furay cid kale hadda maaha waa wagardhac marixaan dhayaan jaa'ifiin marixaan waa intaasoo qabiilo kala baxda ma jaaifeynayo sababtoo xabad baan wada garanay nin baa soo qabsanaya halkan ay wada saaran yihiin xataa screenshot baan ka qaaday nimanka soo qabsanaya magacyadooda aqaanaa naagaha magacyadooda aqaanaa waxay leeyihiin ninkii naagti waa ka tegay cunugaana 40kii ma gaarine aan ku dacweynay sababtoo hameen maalin leef bay ku jirtaa marka waxaad ogaataan milyan carruur baa u joogta cunugeedu ugu jir waa 4 jir intoona ku koro ilmaheeda kale waa wada qaangaarba weligeedna laankiisa ku jirto aniga kayga xataa ayaga haya hal wiil qaangaarka hal wiil qaangaarka laakiin waa niman Yurub macnaha Yurub haduu 14 gaar 15 wax waa lagu aamini karaa ilmaheeda 13 ilmaheeda marka kan yarka hadaan maqanahay aniga iyo hadaan joogo wax big deal ma ilmaheeda oo haynay caawinay Yurub sharciga Yurub horta barta 4 sano joogaa Yurub dad 4 sano joogay 5 sano baa waxay rabaan sharciga Yurub inay kaaga sheekeeyaan waxaan arkay naag baa soo qabsanaysa xataa gaalaha oo Christian baa noqday tiri oo dhulbaanta sheeganaysa ayada laftigeeda oo dhahaysa lagu dacweeyo maadaama ninkii ka tagay cunugeedka lagu dacweeyo naagtan si life ku galin oo life iyo cunug maxaa iska qusay marka horta wax badan baa hadda life aan ku jirnaa cunugeena waa kaas uu hurdooyay maxaa ka bedeli kartiin marka horta wax badan baa idinka qaldan sharciga Yurubna barta ilaa shalay wallahi waxaan arkay waxaad ku kala baranaysaa adiga laftigaaga dadka xun iyo dadka fiican marka milyan markay idin leedahay midgaad tihiin mareexanow weliba wagardhacow anigu waa idin aqaan waxaad tihiin sababtoo ah dad nala soo koray baad tihiin mareexaan rasmi ma tihiin dad nala soo koray baad tihiin ma fahanteen صح waxaa tiina dhan waa idin aqaanaa marka waxaa ugu daran dadka hadda idin baranahaya oo idin soo socdo oo idin aqoonin baa ugu daran taasaa ugu daran mareexaan sharaf buu leeyahay qaabkii laakiin cayayaanka mareexaan ku dhex jira haddaan laga sifaynin dadka marka adiga cunugaaga yar saqiirka aynayo life-ka u soo furnayo waa wagardhac kale iyo kuwa ha u soo qabsanayo adiga maadaama mareexaan soo dad tola ma hidin maxay isku keenaan wagardhac tolna hay wagardhac miyaan tolna wagardhac miyaan tolna saddexdan bir hadda ninkan wuu aamusnaa maanta cunugaaga haddana soo qaadanaya okay cunugaaga qofki caayo maxaa isku tiinaade maxaa soo hadlahay aniga hooyada iyo aabahay tay dhaleen ama kay dhaleen haddii cunugayga saqiirka u caayo waxba isu mani dadka marka dadka oo marka luuqmanka soo galaya ama soo caayo ku dhahayaan marka maxaa la yiraahdaayo tol baa la yahay iyo hebelo baa la yahay waxaas ka gudub waxaas dhagaha maaragta waa haddaan dhagaha u daloolsho wey haddaan dhagaha u daloolsho wey aniga cunugayga cid aan ku darsanay ma jirto soo wax fahanteen maaha marka horta caqligu ha shaqeeyo haddaad tol tihiin haddaad ehlo kala tihiin haddaad qaraabo kora tihiin qofka qabashada idinkaga baahan waa yeeydaan wagardhaci yeeydaan qabta midgahan isu soo arursaday ee wagardhacda ee rag iyo naagaba xataa ay habaarayaan leeyihiin bal maxaq bay ku leeyihiin ilaah cunuga kaa qaad saqiir allah ka dhiga bal habraha dhahaya ilaah cunuga fariin u dir habraha cunuga saqiir allah ka dhiga dhahaya fariin u dir oo dhahayn alxamdulillah duu ku furo waxbay dhalaan wax miyay dhalaayo wax ilmaha u habaarayaan ilma ma dhalaan tu habar 40 konton jirto oo gardhaco waxba hal cunug wadan bad arkaysa maxaa dhalmada ku celiyaa dasho wax ku codad reer diini bay qabaan wagardhaca ini sheegay codad reer diiniya codad reer diini maxaa reer diiniga maxay sameeyeen
wagardhac waxa ku kalifay inay cunugayga soo qaataan waa wax soo jireen dad reediinay qabaan ilaa ka soo bilow maxamed siyaad barre dowladda maxamed siyaad barre ilaa hadda ku xij reediin hadday baqaan waa xanuunsanay wuxuu ku leeyahay reediin baa xil qabanaya annagu miyaan wax qabanay marka qofkii haddaan ilaahay u dhalin inuu wax qabto oo aniga inaad boorsada iyo kastumada ii sido ilaahay kuu kastay waxaan ilaahay baa bixiyay xilka ilaahay baa bixiyay xilka sax shaashad xoog garaaca ma fahanteen marka malyuunna aniga oon la qabin bay mareexaan baa tiri Soomaaliya oo dhan ka adkay haddana shalay waxa soo baxdayba boqorada Ingiriiska inay taakili bismillah furoogiga wuxuu noqday sababta media clipki haddaan dhaho lambar waco oo meel waco mobilkayga aan furo clip ordaya iga soo horboodaya oo TikTok wifi wallahi waa wayse qaba kalmad beenana ku hadlay weerdhacay waxaad tihiin social media maanta si fiican baa la idinku sii barta weerdhac waa dagaalanta waa geesiyeen qaar inta marxan idin qarinayaad aragteen hadday geesiyaal yihiin hal magaalo haystaan yaa maya hadday geesiyaal yihiin saqiirka yaris maxaa daba dhigay ila geesi saqiir ma aade nin saqiir ku meeraysanay geesi saqiir ma dilo aniga ninka hadda cunugayga soo qaatay inta hadda daawanaysan halkan waa iga arkaya lawyer baan qabsanayaa meel baan la gaarayaa maya dagaalka hadda wuxuu noqonayaa wagardhac fiis raahib wagardhac fiis saqiir dagaalka wuxuu u dhaxeeyaa saqiirkeena iyo wacaldhac aniga maanta hadda magaalada aan dhex maraya baa la igu soo sheergareeyay maxaa lagu soo sheergareeyay waxa la cunugaas ka wata marka screenshot ka qaadayo marka sababta TikTok sabaan u marko waa gartay ma qiimeynayo